waxaa farxad weyn noo ah aniga oo safiirkii Soomaaliyeed ee Kenya iyo bulshada Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan baa in uu maanta noo yimid siyaaro rasmi ah inuu Prime Ministerkii noo yimid Xasan Cali Khayre ummadan Soomaalida ee dhulkan ku nool aad bay farxad ugu tahay inay la kulmaan Prime Ministerkooda wuxuu ku yimid invitation rasmi ah ku yimid wuxuuna la kulmayaa saacadaha soo socda madaxweynaha Uhuru Kenyatta taasina waxay astaan u tahay xiriirka weyn ee sii xoogeysanaya maalinba maalinta ka dambaysa ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya wadan aad iyo aad muhiim ugu ah siyaasadeena arrimaha dibadda weeye asbaabo gaar ah oo jira dartiis asbaabaha waxaa kamid ah markii ugu horeysay xuduud inaan la leenahay xuduudkaasna inuu tension ka jiro oo security issue arrimo ku saabsan security-ga shabaab inay maaragtay meelahaas ka dagaal gasho oo ama Kenya dhibaatayso ama anaka dhibaatayso ama shacabka Soomaaliyeed ee beeraleyda ama xoololeyda ay dhibaatayso tan labaad Kenya waxaa ku nool dad badan oo Soomaali ah oo aad u xoogan oo ganacsata ah oo runtii ganacsi xoogan ee ka wada wadankan haddana waxaa weeye Soomaali badan oo wadankan Kenyaati u dhalatay oo haddana siyaasadda meelo fiican uga jira waxaa soo dhan waxay keenaysaa maaragtay xiriirkeenu inuu noqdo xiriir gaar ah oo muhiim ah oo xoogan inuu noqdo annagana waxaa weeye inaan sii xoojino weeye maantana tilaabay u tahay xiriirkaas in la sii xoojiyo siyaaradan uu ku yimid Prime Ministerka Khayre waxaan filahayaa marka inuu maalinba maalinta ka dambaysa uu sii xoogeysan doono xiriirka dhexeeya dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya waxaan rabnaa waxaa weeye sida hadda muuqata ganacsi baa naga dhexeeya laakiin ganacsigu ma dheelitirna waxaan rajaynaynaa in mar shir baa ka socda hadda maanta iyo beriba oo JCC la dhaho shirkaasi marka waxaan rajaynaynaa in lagu soo qaadi doono qodobo badan amniga iyo lagu soo qaadi doono dhaqaalaha iyo maaragtay ganacsiga lagu soo qaadi doono waxaan rajaynaynaa Soomaaliya waxay ka mid noqotay ECOWAS ururkan ay ka mid noqotay in faa'iidooyinkooda in ay caanamaasho faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah inay wadamada ku jiro dhan ay Soomaaliya waxay rabto geyn karto ay u dhoofin karayso ay ka tartami karayso oon lagu sameyn karaynin wax discrimination ah aan lagu sameyn karaynin marka Soomaaliduna waan ognahay inay aad ugu horeyso maaragtay ganacsiga marka waxaan rajaynaynaa inay fahmaan dadka Soomaalidu inay suuqyadaas oo dhan ay u furan yihiin tan iyo intii la galay ururkaas la galay inay suuqyadaas oo dhan u furan yihiin marka yaan ka maqnaanin yaan annaka dad wax loo keeno kaliya yaan noqonin dad wax geeya annaguna waa inaan noqonaa hadduu Ilaahay yiraaho marka aad baan u soo dhaweynaynaa Prime Ministerka uguna faraxsanahay waqti yar buu joogahay laakiin waqtigaas waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay dadka nuqabka bulshada Soomaaliyeed ee halkan ku nool hadduu san wada arkin inuu arko inuu maaragtay wax ka dhageysto baahidooda iyo maaragtay dhibkooda iyo waxay qabaan isaguna uu la sheergareeyo xaaladda horumarka ay dawladdu ku tilaabsatay iyo meesha wax marayaan intaasaan rajaynaynaa marka